waa 21 gabdho daayar ah oo hal mar lagu sameeyay gudniinka fircooniga deegaan ku yaala waqooyiga magaalada Kismaayo. Gabdhahan yaryar ayaa la kulmay dhigbax iyo xaalado caafimaad oo adag mana aysan helin daryeel caafimaad. Gudniinka fircooniga waa dhaqan aad u foolxun oo saameyn weyn ku leh nolosha gabdhaha Soomaaliyeed, waana dhaqan ka hor imanaya diinta Islaamka, xuquuqda aadanaha iyo xagga caafimaadkaba. inkasta oo ay wacyigelin badan ka sameeyeen dawladda iyo hay'adaha kala duwan, haddana dhaqankan foosha xun weli waa uu ka jiraa deegaanada miyiga ah. والله dhibaatadana jirta waa wax xaqiiqo ah waa la yiri waa soo gudubtay maanta waa kor taaganahay buulashi baan qof bulbul u baareena oo soo galeena anigii wasiirka haweenka ah u taagan insha Allah tiisaan yeeshayna waan soo qabaneena insha Allah. wasiirka wasaaradda haweenka Jubbaland Cadar Ismaaciil Cabdullaahi ayaa booqatay deegaanka uu falkan foosha xun ka dhacay oo ku yaala waqooyiga magaalada Kismaayo. wasiirka ayaa gabdhahan yaryar gaarsiisay daawooyin, sidoo kalena dadka deegaanka ku wacyigelisay dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga ah. maanta waxaan soo booqday duleedka magaalada Kismaayo, sababta ahna waxa waaye waxaa lagu guday halkaan oo gudniinka fircooniga ka dhacay. waa meel la yiraahdo ceel jaalle, meeshii dadka barakacayaasha ah ee xoolaha ay ka soo dhamaadeen ay ku soo barakaceen waaye. waxaa dhacday 21 gabdhood ayaa halkaan lagu guday oo loo guday gudniinkii khaladka ahaa ee fircooniga ahaa. saa darteed gabdho waxaa jira dhiig baxay, gabar baa aad u dhiig baxday oo xidid la gooyay. waan qaadnay waxaan geynay maxay ahayd Kismaayo, xididkiina waan u soo tolnay, kaayada ku xirneed kaayadana waan ka soo deynay. haddana waa kuwaana waxa maaragtay markhaati ka ah inay haweenkii gabdhihii yaryaraayo saan loo silciyay ee halkaan joogaan. waxay u baahan yihiin xaafadan ama meeshaan barakacayaasha dadkii baadiyaha ka imaaday ayuu ku soo haray gudniinka fircooniga maba ogaba. waxay ku leedahay maamada markaa weydiisid oo gudniin la'aan bay ii joogi lahayd, maya waxaa u guddaa sidii sunniga u gud, maya annaga saanaa naqaana. almuhiim waxay u baahan tahay halkan inta la yimaado wacyigelin ay u baahan yihiin, sibinaare in la siiyo u baahan yihiin. dadkan waxay u baahan yihiin in maxay ahayd si degdeg ah loo imaado meeshaan. insha Allah waan u imaan doonaa, waana maxay ahayd soo aadayna waa kuwaana. ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha badbaadiyo gabdhihii yaryarka ahaa. hadda gabadhaas dhiig la'aan waaye, yarta ah dhiig ma hayso, waa bararsan tahay, way dhiig baxday. wixii jirkeeda dhiig ku jiray walba iyagoo iska daciif ah oo iska eber ah bay haddana sii dhiig baxeen, mid walba wata tabcaan ah. marka insha Allah waan u imaan doonaa. dadkii saan gabadhahan saan u galayna waan arki doonaa insha Allah inaan u sheegno waaye haweenkan culimadii loo keena inuu gudniinkan xaaraan yahay la baro waaye oo la imaado halkaan insha Allah. bismillaahi kariim.